ragga oo dhan oo gurceel ku wada nool oo dhan ba haday adiga ku jeclaadeen indhama laha yacni waxay ka wadaa gabadhani adiga wax qurux ah oo aad dadka ku soo jiidan kartidba ma balihidba maxaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسو دوادا موقال عصب waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto una share garayso asxaabtaada muuqaal baan idin haya maanta okay muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay gabar soo bandhigtay yacni quruxdeeda iyo waxa kale oo ay soo bandhigtay iyo bilcida jirkeeda yacni sida ay u qurux badan tahay gabadhani waxa ay ku nooshahay magaalada Gurceel waxa ayna muuqaalkan gudihiisa ku sheegtay inay Gurceel oo dhan iyada ay ugu qurux badan tahay marka ila daawada muuqaalka marka aan daawano kadib waxa aan fiirin doonaa commentiyada iyo aragtida dadka waxa ay fikirkooda oo arintaasi ay ka dhibteen baan fiirin doonaa ila daawada muuqaalka hal mar aniga ma aaminsani maanta gabar iga qurxoonay Soomaaliya joogto raggu isoo wacay waxay dhahayaan aniga gabadhan kala hadaa helin wax walba yani wax walba ka bixin maanta hadaa duwada taalo rag waxa jiro oo aniga oo sun iyo cabay oo 3-4 mana sigaarayo saasay taana aniga ayaga sunta cabay ani ma dhahay maxay caawayna aniga dadku waxay dhahayaan la kula anigana kulankeyga yani chance ma hay inta aragtida dad raadiyo okay muuqaalka waa daawateen badankiina waxaan u maleynayaa inaad muuqaalkan aad ku aragteen aalada TikTok ama Facebook marka waxa aan fiirin doonaa dadka aragtida ka soo dhibtay gabadhani kadib waan isla qiimeyn doonaa insha Allah taala commentiyada ayaan iminkana akhrin doonaa si fiican ula soco commentiyada gabadha ugu horeysa Prince Miral ayaa u qoran waxa ay tiri gabadhan halawa carago qof la hadlo ayay weydii ayay gabadha kale Zainab Tushley 1 aa u qoran naag Isbaanisay Maxmed ayay taagan tahay micnaha wax qurxo aad leedahay ma jirto laakiin waa Isbaaninaysa ay ka wadaa okay gabadhan Anisa Abdirasaaq ragga Gurceel joogo indhama laha haday adiga ku jeclaadeen ragga oo dhan oo Gurceel ku wada nool oo dhan ba haday adiga ku jeclaadeen indhama laha yacni waxay ka wadaa gabadhani adiga wax qurux ah oo aad dadka ku soo jiidan kartidba ma balihid maxaa gabadha kale Queen Mario waxa ay tiri waa beentii oo qof ah ay taagan tahay ilaahayow reer Commentland ama comment ku dhiglaasha haday ku helaan ya gabadhani waxa ay tiri tani waa bahal ka fadhiiso magaalada waa laga qurux badan yahay waxaana ka qurux badan Natasha gabadhan ugu qoran Lule waxa ay tiri foolxumo sun loo cabaayo ma jirto yani adiga aad ba u foolxun tahay nin sun ku cabay darta ma jiro ay ka wadaa gabadhan waxa ay tiri iyadana calafdoon inaad tahay waa noo sheegtay laakiin ana ka qurux badan hey abo hey hadii meeshan ay soo gasho yani cid aniga iga qurux badan ma jirto ay laga wadaa gabadhan iyadana waxa ay tiri waa ila soo hadlo farsamaysan yani qof kula hadla ayaad geysay marka ragga ayaa macnaha si sarbeeb ah aad uga digaysaa yani ila soo xiriira ayaad ka wadaa ay leedahay gabadhan aragsan ay u qoran tahay iyadana waxa ay leedahay war meel qaldan baan soo galay kabahayga aawi kulaha meel qaldan baan soo galay kabahayga kulaha kabahayga aawi ay taagan tahay gabadhan okay gabadha kale aan fiirinayna ninka ka duway ma nool yahay ama sunu cabay isbitaal u yaala miya gabadhan iyadana saanay taagan tahay yani hadii ragga oo dhanba ay dartaada sun u cabeen ninka kaamiramanka ah oo muuqaalka ka duway isaga dartaada ma isbitaal ayuu u jiifaamaysa aawi macnaha isaga okay halkan ayuu ku yahay muuqaalkan idinka gabadhani
sida aad u aragtaan oo fikirkiina ah waxaan noogu soo qoraysaan qaybta hoose ee commentiga. haddaad muuqaalkan aad ka heshay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto asxaabtaadana u share garayso. aad iyo aad u mahadsan.